بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن wanaagsan waa mar kale iyo barnaamijkeeni dardaaran oo had iyo goor aba aynu soo gudbino dardaaranno ay umadu isu dardaarmayso wixii wanaaga la iska reebayo wixii xumaana maanta barnaamijka waxa inoogu martiya wala Umar Diiriye oo ah mudane muxuu ahaa takhasuskiisu yahay xagga logistikada marka mudane wala maxaad ku dardaarmi lahayd umada afka Soomaaliga ku hadasho بسم الله الرحمن الرحيم أنا وحنوناي ضد الإسلام ضد الإسلام كان وحوي دينتي سلوك أبي هذا الصومالي صح الصومالي إنما ده أنا واحد كل دار محيا هل كلمة أنا أقوى أتكينيا قلت كلمة لا إله إلا الله هنا معناها أتكيان وكل دار محيا لمبر 1 مدة كله واحد كل دار محيا أفكار ويو in ay ku faanaan oo sakana xoog badan afkale uu leeyahay oo la soo geliyay ma kala dardaarmaya waayo waxaad arkaysaa hadii aan Soomaaliyeed nahay BBC ba meel waxa ka furanaysa islaam macnaha dadkiina waa dad Soomaaliyeed oo Soomaaliyeed way ku wada hadlaan reeyo maahan Ingiriis maahan Asian maahan waxa ku ahtaa wax ku qoran Soomaaliyeed Ingiriis ka tahay soo inta ka yimaadaan kana Soomaaliyeed ku qoran waxa arkaysaa kelmad Ingiriis ah qofkii garan maayo marka afkooda Soomaaliga hooyo inay ku qoraan boorarka ay ku qortaan hoos kan kala geliyaan si caalamka kale uu garto markuu meesha maray laakiin Soomaalinimadooda waa inay sarmariyaan qadiyadooda sarmariyaan magacooda sarmariyaan kufaanitaankiisa sarmariyaan oo kelmadaas aan kula dardaarmaya waa mahadsantahay waxaan kaloo kula sii dardaarmaya waxaan kaloo la sii aad ula sii yaabsana oo aad ula sii yaabana oo Soomaalinimadii meesha ay ku dhacday dad waxa loo imaanaya hay'adihii waxay oranayaan qof af Soomaaliga yaqaan kay af Soomaaliga qof Ingiriis oo ma rabo darawalka waa Ingiriis yaqaana kii wardiya waa Ingiriis yaqaana kii shaqeynaya waa Ingiriis yaqaana waxa marka ka imaanaya marka in Soomaalida shaqo wado in kelmadda Ingiriiska ay meesha inta ka baxdo iyagu la samaysteen turjumaan samaysteen waxa lagu hadlayeen oo noqdo seminaarka marka la qabanayo Soomaaliya lagu hadlo marka la qabanayo lagu hadlo muxuu ahaa Soomaali oo wixii Soomaaliya lagu soo diyaariyo waa mahadsantahay dugsi dhexe ba diyaarin kara waxa ay dadka ay noo soo dirayaan oo Kenyaatiga ay waxa ay diyaariyaan ardayda dugsi dhexe ba diyaarin kara si dalkeenu u faa'iido haatan waxay ku sii dareen funaanadihii wadankeena laga gadi lahaa in inta wadankooda laga soo qoran ay madax ku qoraan bulshadeennii ka isticmaal jiray sawirada sameyn jiray artistayaasha ay dhaqaalo weeyaan oo wadankaaga dhaqaalo burburka yimaado waa mahadsantahay marka Soomaaliya aan intaas aan kula tartamaya wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh